أنا وكهلا ما هذا سانقول كسول عن سود وينيا ولا هذا الله خاطرنا يسمال لان عن سحيبتي برلمان كسمال لان يقول عن سحيان إن لو ما عمل الله ولا الله بقول كده بقول سود ويننا وأنا كفر أحسن وقال صلى هاي وسود ويننا خاتمه يا صومال لان وده هذا الكود خاتمه يا صومال لان طه هالشركة يكون سود ويننا خاتمه يا صومال لان سيد الدعوة كل أسحي ويقول لهم معمول وجبين إنه الله إنه الشياب ويبكرتي يقول لك بدرس كتاب الحياة ولا استعمال في إنجليزي تدرس كتاب الحياة بيك سوي الشيء أنا وأركتره ده وحانو أركاه خاتمه إنه يتهمام الشرة إسلام مركانا يدا يسومال اللان wixii khilaafaad ay u dhaxeeyeen muddo badan ay garteen inay dhameystaan oo waliba wada hadal ku dhameystaan halkuna wada hadal buu ku yimaadaa sidiisaba dhul geographically yani baaxadiisu aad u weyn tahay bay degtaa maamulkeedu ka taliya isla markaana ay u dhisan yihiin maaragtay structure-kii iyo qaababkii dawladda iyo qaybihii waan taageeraya oo waxaan u arkaa inuu sax yahay qodobkii shalay la baasgareeyay baasha Maxamed Cadde oo u gartay inay qodobkaasi uu yahay qodob weyn oo meesha ku jira baarlamaanka Soomaaliya saxiyeen labada maamul ee Soomaaliya iyo Khaatumo heshiiyaan wada hadlaan baanu taageersanahay bilbaantana ma kareero ma kala laha wada hadalada Soomaaliya iyo Khaatumo baarlamaanka ku saxiyay haddaan baarlamaanka Soomaaliya haddaan nahay odayaasha gobolka Sool mudurweynaha haweenka ragga dhalinyarada dib ay soo yeeliyeen baadana shacabweynaha ku dhaqan gobolka Sool waxaan soo dhaweynaynaa guushiisa ay gaareen xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominaya Baasha Maxamed Faarax oo lagu ansixiyay laba maamul wada hadlaan maamulka Khaatumo iyo dawladda dimuqraadiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dadku wax isku afkartaa Soomaaliga waxa la yiraahdo إننا واحد ندخل الرئيس أصلكنا الكفرنا نحن كذا الله هذا يقول اللي يركي حتى لو هذا خاطبه الصومال الوادات اسكننا بدعينا ما الله كلا بحري حنشل وين كفر الشيء بارون كالسومال لنا الجارين وجارين يبغون باشا محمد عدي وحنا أي تغيير وهذا الخاتمة السومال أنا واحد دكتور قلت تحتاج كل وهذا مصير كتب السومال أما السؤال سلام يعني خاتمة الله ما مباركة وهذا wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland waan soo dhaweynaa waa guul waa abshir waa barwaan kal fadhiga si xaqab u dhacay in shirkadda Baasha Maxamed Cadde waa ay sida wali loo banaan baxo waan jecelahay oo ka dhacay magaalada Hargeysa ay u fariisteen baarlamaanka Soomaaliland ee lagu ansixiyay wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa waanu noo banaan baxaynaa soo dhawow ninkii ka hadlayay dhalada ee qabyaalada ku hadlayay annagu magacaan u naqaan horta beel cadiib u ahaa magaciisii iyo magacaabihiina uu ka guuray wuxuu u guuray Ali Koor u guuray isagana waxaa la yiraahdaa inuu hundamida la yiraahdaa ciidamadii waxa laga oran jiray socod ku xaar baa laga oran jiray waxaanu doonaynaa markaa ninka in laga kaxeeyo ama laga eriyo mas'uulka uu hayo Soomaaliland baanu jecelahay madaxweynaha ka codsanaynaa Soomaaliland ninka kala eriyay fadhigii kal fadhiga Khaatumo iyo Soomaaliland annaga Khaatumo hay dawladdan hay Soomaaliya kale ma aragno taageero ninka arada tiisaro arwen hadalka Baasha Maxamed Alkaso weydiiyay baarlamaanka in la isku raacay waxaan Khaatumo in la hadlayaan iyo Soomaaliland halgaliyaan haalanka iyo baarlamaanku go'aamada ay gaareen soo saareen baanu taageersanahay oo gaashaanada Maxamed Xuseen Caqaawe aan taageersanahay hadalkii xaal Maxamed Baasha Maxamed Cadde oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ka soo yeeray
ee khaatumo iyo Soomaaliya wadahadalkooda taageersannahay haddaan nahay reer Laascaanood ninka diiya waa nin fidno waxaan leenahay hala qabto ummadda hala qabto waxaan leenahay waanu ku raacsannahay waanu ku faraxsannahay in ay wada hadlaaba heshiiyaa la yidhi colaad iyo dagaal waxba tarbeysay wax walba lagu heshiiyay ayaa wanaagsan waxaan la hadlayaa ninka xildhibaanka ka hadlay maxay tahay Hargeysa waxaan ku leeyahay dhulbaahanta qayb sama baahno reer hebel iyo reer hebel looma baahno ninka isku duubayo midka ka dhigayo kaasaan anagu raacsannahay inaad hadalkaaga u fiirso kana fiirso ayaan ku leeyahay aad baan uga xumaadaa hadalladaada TV-ga aad ka hadlayso wada ay damqaa dhulbaahanta waxa kala saarana waan ka soo horjeednaa taageeraynaa ansixintii shalay ee ansixiyeen golaha baarlamaanka ee Hargeysa ee uu shirgudoominayay Baashe Maxamed Faarax waxaan aad u soo dhaweynaynaa shirgudoonkii gudoomiye Baashe Maxamed Faarax hadaladiisii ahaa in ay laba maamul oo walaala oo derisay yihiin Khaatumo State of Soomaaliya iyo Somaliland ayna u wada hadli karaan laba maamul oo walaala ah aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin أنا أقول لك ما هذا سأقول لك الصول عن سود وينيا ولا هذا الله خاتمة يا سومالان يو أنسحين تي برلمان كسومالان يقول تدا أنسحيان إن لو ما عمل الله ولا الله بقول كل بقول سود ويننا وأنا كفر حسنا